السلام عليكم دمان أصحاب شرفت المرة لبادي مرسل حد بسؤال وهذا أنا وعافمات قبيلك وعافمات قبيلك هذه ولا صوتها خضر في الشيء فضلا تذكر الكورس بتاعي سبسكرايب نجح سيدي أنت هذا كوجد بو أنت هذا كجد بو يعني مقال كان نيو وضوء قلت رمانتي وحربان مقال كان وديري هني يرى كوبان إنك سوقاتهم هيمتهم إن ساتيت الكوارك تامبا إلا هذا يعني مقالة دي وحيش دارين حرقفت دحتالا labada snin shaqo booyo ninka la dhaho daahir cali shuub bal muhiimadda aan muuqaalkan aan usoo qaatay aan usii guda galo marka hore waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed hayo lacagta diyada ah ee kontonka halaad ee gabadha shilka ku dhibatay baabuurka uu waday sharmaake cabdinaasir sharboy anigaa bixinaya haddii dadkii uu ka dhashay ay ugu dambayn biri bixin waayaan oo lacagtaa laga dhiibi waayo biri oo kontonka halaad wax micnaa kuma dhisne ay intay isu tagaan mageerteen wala cumar maxamuudiya wa maxamuud salibaaniya isu tagaan birito ay ka dhiibi waayaan lacagtaa kontonka kun ee dollar ama 60 kun ama 70 kun ah keenaa bixinay aan intaa ku dhaafo muuqaalka muhiimadda aan intaa usoo qaatay waxaa weeye horta ay ku saabsan tahay ninkan daahir la dhaho ilaa hadda wuxuu wado waa yani hallay sheego hallay sheego halla dhaho ninkii daahir basharan boo intaasoo lacag ka bixiyey hal lagu wado keliyaad in lagu sheego baad rabtaa yani haddaad doonid haddaad tahay nin waxa bixinaya ama magaranaysaay walaalkiis oo dhibaataysan oo dhibbanaa yani dhibka yani la qaybsanaya oo wax ka bixinaya adoon sheegin baad yani shiyada quyana baad u bixinay taa laakiin waxaad ku oranaysaa waa lagu dafiri aduu haddaad wax bixinayso tahay caawiye ama qof dhibaato haysato inaad magaranaysaay aad ku caawiso maxaa laga sheegay sadaqa haddaad la baxayso sadaqada in la sheego kuma yani kuma haboono haddaad qof walaalkaa wax ku caawinayso maba ku haboono in lagu sheego so waxaad ka rabtaa faanfaan iyo hal lagu sheego ninka shalay sharaftiisa iyo sumcadiisa yani bulshada horteeda social media inaad dadka ku bahdisho ayaad ugu talagashay يعني waa lagu soo diray wallahi billahi yani inaad qof bulshada magac ku leh intaad telefoon ka wacdo ama aad tiraahdo yani raaligelin yani soo bixi raganimada horta taas kuma jirto daahiro raganimo taas kuma jirto adba maad yeesheen maanta intuu sharmaba intuu kusoo garaaco inuu ku dhaho waad igu khaldantay ama intuu adigu intaad sharmaba soo garaacdaa tiraahdo yani dagaalkii aan labadiina ku wada jirnay waad igaga adkaatay يعني intaas inuu kuu sii dhaafo uu ku dhaho bal cafis waxaan ku weydiinayaa bulshada aniga igu xidhan commentiga soo qoran baan cafis kaaga sii weydiinaya taas adamaad aqbasheen ninka raggaana yani intaas oo dhan loo ciilciilo cid aqbalaysa ma jirto yani inaad nin raga sharaftiisa intaad ku tumatay oo weliba shalay aan waxba isagoon kugu samayn intaad adigu bulshada soo hortaagsaad aad kalarka iska laalaadisay saad lacag ku leedahay atraftiisa sumcadiisa aad ku tumatay oo intuu ku yimi ku yidhi niyo waad iga badisay raali noqo intaa kumaad hadhinay weli ayaankaa waad sii daba socotaa cid kastaa kula hadashay waxaa lagu yidhi ninkan dhibaata ku dhacday qof youtuber kastoo soomaalida ku ninkan dhibaata ku dhacday iska daa faraha ka qaad way u soo hada qaadaysaa lacag waxba ka bixin waxba kaagama baahna faraha uma ka qaadi kartaa ninkan bakoran ونيك رجع ساسو دون والله بالله انت ان كوين بعد لكل مدة تعالوا انت ان كوين ايض لكل مدة اروح كلك ولا ماي نيوين سنة واحد وجهه كو لابد يكون يقابل لا تقبل وجهه إلا يحد وحد ودوح اللي قد داري لابد يكون يقابل لا تنكي بعد قبيالات يقولون انت السوشيال ميديا لو سهر فريسته بعد حالسا انا وخيرها بلا شرم بوير ريتها بلا انا كذا والله بدي يكون يقول لا تقبل وجهه وقدر وحن ولي سو داري يرتم قبيالات يقولون يعني هنا صاود حلول استربتها يرتو يسوي لا وربتها قبيالات ولا اسكدين ربا ولا اسكو بحنوليه تدكو اسلا انتيان ولا اسلحنا ولا اسلعبه wax kasta waa la kala qaybsadaa adoo miran wallahi billahi waxaad ku fiicnay inaan xabsiga yani taraq lagu dhigo gunta lagu dhigo that's nothing يعني
wax allaali waxa yani aad ku xooran tahay anu ma garan karo. hal mid keliyaad arrinkaa faraha ka qaban ku dheelo inaad ninkaa iskaga hadho. lacag baan ka bixinayayo, futuud baan ka bixinayayo, kanaan ku caawinaya, iskaga hadho. hadday raganimo kugu jirto way oo 2 xiniyood leedahay, bise waxaa tahay nooca yani micida doqonnimadu yani intaa leekaatay, yani micida intaa ku leeg doqonnimo heer aad ka gaadhay. war ninaad shalay bulshada horteeda yani social media aad ku bahdishay baad haddana weli alankaa maanta aad sii daba socotaa oo bahdil kale ayaad qabiilkiisa la daba socotaa. inaad hadhowta tiraahdo sharma boy ale yani lacagtii magta laga bixin kari waaye anaana gacanteeda intaas kaga bixiyey. bahdil kale ayaad la daba socotaa inaad sii bahdisho. ninka raggaa waas qabateen, waas layseen, wuxuu ku yiri waad iga adkaatay walaalow faraha iga qaad. maantana heer waxaa taagan weliba muuqaalkaaga waxaa ku jira inaad tiraahdo in aad tiri weliba beesha uu ka dhashay intay magaranaysaa soo istaagaan may odhan kari waayeen yani raaligelin may soo bixin kari waayen. ilaa waxaad gaadhay aad haddana waxaad maraysaa heer aad tiraahdo yani beesha uu ka dhashay waa inay anigii soo raaligeliyaa. war awalba baalis maydu qaban, ninkan si shaqsiyan baa isku qabateen. wuxuuna ku yiri waad iga badisee niyow 2 ninoo isdilay midun baa magaranaysaa kala adkaan jire, midun baa adkaan jire, haddana waad iga badisee faraha iga qaad. balaan aragno sheekadaadu meesha ku dhamaato. 60 jir qabyaalad social media la dhex fadhiya ayaa taa oo dhalinyarta yani sun ku dhex jirtaa taa. kii walbaad caawisay ama wax u qabatay ama aad garab siisay waxaad jeceshay inaad ku mana sheegato waad tiraahdo hebelkaa waan ku caawiyey. war shalay waxaad ugu tala gashay inaad ninkan sharaftiisa iyo sumcadiisa yani inaad baraha bulshada aad saa ugu jexjexdo oo dhulka la gasho ayaad shalay ugu tala gashay. sababtoo qabyaalad iyo qurun iyo dhiiqo ayaa lagu hawgelisay. waa sharma boy wax kastoo kugu dhacay runtii qof kasta ka xun, cid walba oo damiir leh qof kasta uu ka xun yahay. laakiinse hal mid baan kugula talinaa, dhibaato kastoo ninka ragga soo marta wuu u dulqaadan karaa, laakiinse bahdilaad iyo magaranaysaa duleyn iyo cagajulayn uma dulqaadan karo. maanta tan lagugu sameeyey berina mid kale afka kuu soo dhigan doono oo kugu sameynaya oo odhanay shalay buu wuxuu daahir sameeyey ku samee. laakiinse aan waxaan ku odhan lahaa marnaba ha qaadan inaad qof bil-aadana aad madaxaaga yani hoos u geyso. marnaba ha qaadan. ilaahuma wuxuu doona ka hayo, sirtuu doona ilaahuma ka hayo. inaad marnaba qof bil-aadana aad madaxaaga hoos u geyn. inuu markasta madaxaagu taagnaado, ninna inaanu ku gumaysan, waxna inaanu kuu gumaysan. daahir sheekadu wada waa sidii sheekadii filmaantii hindiga oo kale. yani magaranaysaa wixiisi intaad qaatay ood afduub yani aad ku qaadatay youtubekiisii inaad tiraahdo baraha bulshada yani raaligelin soo bixi. yani wixiisii baad haysataa, saas darteed buu kugu sameynaya inuu raaligelin ku siiyo. waxay la mid tahay yani waxay la macno tahay adoo qof intaad qofkiisii afduubatay yidhi yani raaligelin madax furasho. raaligelinta maanta uu soo bixi waa raaligelin uu ku madax furanayo kanaalkiisa aad ka haysato. si kale ha u qaadan. wixii rag ku dhaqmi jirayna maad samayn, si walbaa lagula hadlay, wax kasta waad yeeshay, hayee waayey baa tiri, wuu ku ammaanay, guddoomiye soo dhawo, wax walba kuu sameeyey. waxaasoo dhan maad qaadan. keliyaata una ninkaas kanaalkiisa gacanta ku dhigto, kabacdiina isagoo cabaaday uu kusoo garaaco, aad baraha bulshada la wadaagto, aad halkaad tagtaan nacnacada aad ka gurto ood weliba ku faraxsanaato. anigu wax kale ku mali yani micida yani micida intaa kule oo noocu la odhan jiray yani micida 134 flag waxsaas mafahant. yani micida doqonnimada waa intaa kule. nin dhan oo kula heshiiyey oo lagu soo horfariisiyey oo kuli wax kasta waayahay aanu heshiino arrinka halka ku dhammay hadalkiisa koowaad muxuu kaaga bilaabay raganimada yani waxba kama taqaanin buu waana runtii been maaha taas.
waxba kama taqaan laanna nin wax aad ku heshiisiin ood soo dhammaysiin ood soo gabagabaysiin inaad haddana kasii daba qaadato aad tiraahdo yani haddana garow saa yidhi qori buu qaatay saasuu sameeyey hees buu igu soo aflagaadiyey ilaa awowayaashiibu wax kaga sheegay waxaasoo dhan maxaa ka horreeyay heesta iyo garow markuu tegay waxaasoo dhan waxaa ka dambeeyey yani isqabshashadaad markii hore isqabsateen baa ka horreysay taasaa ka horreysay muusan soo hadlin wabacdin waxaan oo dhan hadda waxaad ku rafanaysaa inaad tiraahdo hees buu soo qaaday awowayaashiibu wax ka sheegay maxaa la dhahaa anuu isu aflagaadiyey garow buu tegay yani anuu igu soo tilmaamay magacaas hadda aad ka dhawaajisay maxaasoo dhan maxaa ka horreeyay gardarro cad yani inaad ula tagto badheer cad waa runtii yani ninka haddaad xiniya taabato isna wuxuu doono samaynaya yani wuxuu doono isna samaynaya ama wuu kusoo caayaya ama wuxuu doono ku odhanaya hadda ha ku rafan baan ku leeyahay heesta yani lasoo qaaday iyo garowaha uu tegay ha ku rafan waxaa ka horreysay yani isqabsiga isqabsateen baa ka horreysay anu haddaasoo kule ma aaminsanin nin fanaana oo hees yani inta loo dhiibay buu dafiraya ma aaminsanin qof nin kastoo fanaano magacle abwaanka heestaa sameeyey wuu sheegaa nina eraya aanu samaysan ma dhaho anaa sameeyey ama anaa waxaan samaystay qof kasta kartidiisu ku meelmaraniyo nin weyn oo baraha bulshada qabyaalad iyo quran la dhex fadhiyaata aan wax kale ka shaqeyn haddaad doonayso in lagu maamuso haddaad doonayso inaad sharaftaada yeelato haddaad doonayso inaad sidaada hor ahaato dhalinyartan iyo waxay walaaqanayaan ka dhex bax taasoo kugula talinaa oo haddaad tala qaadanayso laanna qof tala qaadanaya maba ogkeedba qof isla weyn baa tahay qof balaayo ka dhacday oo leeda jiman baa ii shaqeeya iyo balaayo wax allaali wax kuu shaqeeya ma jirto dadkaad waxaa ku harowsanaysaa dadka ayaad waxaa ku harowsanaysaa iyo afarta uu qabiilku maskaxda ka galay maskaxda uu ka dhisdegay ayaad keliyaad aad duufsan kartaa laakiin si qof kastoo damiir leh oo maskax leh oo fikiraya maanta qabyaalad iyo quran inaana waxba talayn wuu ogyahay qof kastaa wuu ogyahay laakiinse waxaa jira dad iska mangaaba oo qabyaaladu halkaa inta ka gashay halkaa uga baxday waa dadkaa wey dadka aada wadato waa dadkaa dadkaad ku tilmaanto ha biqlayso weliba magac xumad la baxday ha biqlayso macnaheed mataqaana waa nacnac wey ha iska nacnaclay wey والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.